بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو تي في لو يغانو سما جعل وحنا كهلا سمانتا ان Soomaaliya siyaasadeeda iyo howlaheeda ayuu ka hadlaa marka wax yar baan ka taabanayna haddaan idii taato wax yar xoogaa yar oo maaragtay afreeya gabayga waa yaqaanaa heesahana waa yaqaanaa dhaantada waa yaqaanaa majaajilo waa yaqaanaa intaba waa yaqaanaa oo Ilaahay way baray haddana waxa weeye anigu iskuma taxallujiyo inaan maaragtay iska meelahaas wax iska tirtiriyo ma garad warka waxa leeyahay in yar baan ku soo dhaweynayaa xoogaa yar waxa leeyahay gabayada waa la xadaa iyo heesa marka waxa leeyahay subxaana wallaahi wada sadiqo jiraye adigay samayso wada sadiqo jiraye sugaanta waa tirinaya subaxan saakay sawdkayga aqbalada sadiqo jiraye amiin Soomaali waysracday oo talo sacabtomayaye wata samaato sidii saraar oo lacaysa wata sidii geedher weyn loogu soo hirayne allow saar wiilka saaran bay sama u lacayne amiin baan leenahay intaas ku soo goynaya waxa la gabayada wal xada waxa badamay laakiin gabay tiro badan waa yaa haddii aan leeyno waxaan leeyahay halkan ka salaamaya Soomaaliya waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato ha israacdo waxaan leeyahay nabad iyo nolol ha noolaato waxaan leeyahay madaxweynaha nabad iyo nolol mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ha noolaato inta ka bacdi waxaan wax yar baan ka taabanayaa marka waxaan leeyahay xildhibaanada waxaan leeyahay Soomaaliyeed ee sawdka iyaga haya in ay fiiriyaan shacabka ninka uu rabo shacabku wuxuu doonayaa صغير إيه كبير المها لبدأ تشري هداه ورئيسة ترى يا مدحوينها فرماتشو لي قفكي أمضو تعيش هاي إلى هنا واتشعليه ربي وين باتشعل ربي جينا وحن كبرينا متكلينا هنا هاي لقصة صارين سوق صبع وايو صوماليا صدن صنو إيه ديرات بي وحي كوتشي دي قد كي وكسو صاري وحي تشوكتا قد كأفكيسي bay taaran tahay markan waxa weeye dalkoo dhan ma wada gaarin godka afkiisii ama boosha afkeedii bay saaran booshaas la doonayaa in laga sii dhaqaajiyo laakiin laba doonayo in gadaal loogu tuuro haddii la rabo godka inay hore uga dhaqaaqdo Soomaaliya oo Soomaaliya maanta israacdo waa in la doortaa madaxweynaha nabad iyo nolol ee la yiraahdo Abdullahi Maxamed Farmaajo haddii kale la rabo inay bohosha gadaal u noqoto xildhibaano waxaan leenahay Soomaaliya bohosha gadaal ha ugu celinin bohosha afkeeda ay saaran tahay hore uga dhaqaaji baa la doonaya idinka waxa weeye codkii bulshada ku hadlaya maanta masiirkii bulshada idinka ummaddu idinka idin jeeda ilaahayna waa idin jeeda وانا إذا لا حساب تمية ما قرأتين مركا واحد الرباء إن عاد وقف سبتان أما نوسع لسان أو شعب كدونيو محمد عبد الله فرماجو باندونيو إن أنا يحيى لا وحلي متغنى إن وحن قص لي بهذا إن حسن قرقورتي الدنيا هذا واحد دوني يعني مدحوين يال بالدوني يعني يا وعن مغلي كذي يا نف نولي معاد waxaan noqli jiray hadii ma aragtay aad dhiman weydo indhaha waxay ku tusaan geel dhalayana waa ku tusaan ma garad xasan gurguurte intaas oo beerood 500 oo beerood bukat dalkana wuxuu ka sameeyay waa la ogyahay nin walba wuxuu sameeyay waa la ogyahay danina Puntland buu hol ku tuur gabdhihi gabdhihi buu gatay 500 buu gatay danina Puntland buu hol ku tuur إله بان نوليي بدلان الحمد لله رب العالمين إله وأذان النوليي إله وأذان النوليي ربي بان النوليي بدلان وقمت لقلين نرر إني نوراتو قد بو كقري هذا لو واحد دوني مدحويني هذا وحوي هذا ماشي مقاحيت هنا لأنك دونا هسكقل
hadday meesha cadaalad iyo maaragtay soomaalinimo iyo cidina dooran mayso ilaahay idankiina hal cod midna helayaan labada midna ma helayo insha allah wabillahi tawfiiq. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلياهو waxaan rabnaa codka kor u qaad. waxaan rabnaa caawa inaan fariin inaan dirno fariintaasoo ku socota dawladda Soomaaliya xildhibaanadeeda federaalka oo cusub oo hadda la keenay xildhibaanadaasaan waxaan rabnaa inaan fariin gaarsiino waxaan doonaynaa fariintayadaas hadday idin soo gaadho xildhibaanow waxaan doonaynaa cidda aanu idinka codsanayno oo doonayno oo shacabku raadinayo oo rabo rabitaanka shacabka inaad tixgelisaan baan doonaynaa ilaahay baan idinku dhaarinay rabitaanka shacabka tixgeliya dadku waxa ay doonayaan qofka ay doonayaan oo raadinayaan waxa dan in yar sheeko yar geliyo bari baan waxaan ka dhageystay xadiis wadaad baa wuxuu yiri ilaahay markii uu doono inuu axad inuu jeclaado markuu doono marka hore malaa'igtiisa ayuu gaarsiiyaa wuxuu yiraahdaa qofka hebel la yiraahdo malaa'igtaydiyay waan jeclahay markaas waxay dhahdaan malaa'igtuna ilaahow adigu haddaad jeceshahay annaguna waan jecelnahay markaasuu ilaahay wuxuu ku yiraahdaa malaa'igtiisa inta dhulka u degataan dadka quluubtiisa galiya si dadku u ogaadaan oo u jeclaadaan oo qofkaas qof khayr badan inuu yahay gaarsiiya dadka quluubtiisa maxamed cabdullaahi farmaajo waxa weeye ilaahay baa jecel inuu ilaahay jecel yahayna waxa u daliila xadiiska yar oo aan wadaadada ka dhageystay oo aan hadda sheegay oo waxa weeye ilaahay qofku doono bini aadanka ayaa jeclaada malaa'igtaana u sheegta bini aadanka qabligiisa gelisa dadkii oo dhan baa farmaajo jeclaaday xadiiskaasuna ku salaysan yahay baarlamaanka Soomaaliya marka waxaan ka doonaynaa ahadka ilaahay jecel yahay bini aadankiisuna jecel yahay inaad Soomaaliya codka siisaan oo soo saadhaan dadka kale oo meesha maraya anigu hadda waxba ka sheegi mayo waa dad Soomaaliyeed laakiin waxa weeye shacabka iyo quluubta shacabka iyo indhaha shacabka ma ay qancin shacabkuna kuma qancin waxa weeye waxa la yiri wadaantii reerkeeda kaafida ayaa reerkan kalkaasha sababtoo ah qof macnaha isagu meeshii uu ka ahaa madaxa u ahaa dayac ka jiro inuu meel kale kaafiyo lagama yaabo taas ma suurtageli kadho marka waxa la ninkii hooyadii soo cidlaa ciiri uga guuray ayadii soo dayacan hadday cid u soo sheegto cisho uma nagaaday cidlu uga caweertaa ninka Puntland sidaa u galay oo maanta heerka dhigay oo boosaase waxa la arkay ka sameeyay baarlamaanka garowe waxa la arkay ka sameeyay oo gaalka hadar waxa la arkay ka sameeyay oo lacagtii la waayay oo dadkii caburiyay oo saxaafadii xirxiray oo adduunka qarribay hadduu Soomaaliya tago waxa weeye waa ka daro dibi dhal bay noqonaysaa ilaahay baan idinku dhaarinay shacabka Soomaaliyeed ninka uu rabo u soo saara baarlamaanow waxaan idinku dhaarinay magaca ilaahay baan idinku dhaarinay idinkuna awal baa hore ugu dhaartay annaguna hadda idin dhaarinaynaa farmaajan doonaynaa farmaajo noo soo saara ilaahay farmaajo noo soo celi ilaahay farmaajo noo soo celi